maamulka degmada Gaalkacyo ayaa deeq xoolo nool gaarsiiyay ciidamada dhawaan la geeyay degmada Gaalkacyo. Saada Sayid ayaa warkaan inoo faafahinaysa. Maamulka degmada Gaalkacyo ayaa gaarsiiyay deeq xoolo ah ciidamo ka tirsan kuwa dib u xoreynta oo soo gaaray dhawaan magaalada Gaalkacyo. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo Maxamed Cabdi Cilmi oo deeqdan ku wareejiyay saraakiisha hogaaminaysa ciidanka cusub ee la geeyay Gaalkacyo ayaa ka warbixiyay sida ay maamulka uga go'an tahay garab istaaga ciidanka qaybihiisa kala duwan. Inta ka soo qayb gashay kulankan waxaanu maanta soo booqanay xero ka mid ah xeryaha ay degan yihiin ciidanka dib u xoreynta beesha reer Saruur oo halkan magaalada Gaalkacyo isku diyaarinayay. Maanta waxaanu halkan soo gaarsiinay annagoo wakiilka ah bulshada degmadan Gaalkacyo iyo beesha ku abtirsata ee Sacad. Waxaanu soo gaarsiinay beesha reer Saruur deeq xoolo ah waanu ugu talagalnay inaan uga qayb qaadano halganka aanu walaalaha iyo hadii la haydmo inta ay ka gaarayaan deegaanadii ama furinta laga tagayo hadii la haydmo suuga laga sii dhigto mana noqonayso tii ugu dambeysay. waxaan rajaynayaa hadii la haydmo inaanu sii wada tagi doono furinta iyo meesha hadii la haydmo aaga dagaalka ee Wisil. intaasana hadda halkan soo gaarsiinay waxaanu gudoonsiin doonaa hadii la haydmo saraakiisha iyo xildhibaanada ma ahan maantay qaybtiini laakiinse waa hordhac weey. dhankooda ciidamada la gaarsiiyay deeqdan xoolaha nool ayaa ka mahadnaqay sida wanaagsan ee loogu keenay deeqdan. inaan maantay anoo labada dhinacba ah oo Gaalkacyana ah oo deeqda bixinaysa Sacad baa dhiibahaya ah Saruur oo loo keenayna ah inaan gudoomo oo labada dhinac aan wax ku yeesho qoladan aan u mahad celiyo kuwa loo mahad celinayaan aan ka mid noqdo. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. deeq badan oo aan lala daahin oo tiro badan oo aad iyo aad ah baadna soo gaarsiiseen. waa idinka gudoonnay sidaad noo sheegteen muxuu ahaayay waad ka cudur daaranayseen inay yar tahay lalana daahay 70 aad wadaan muxuu ahaayay waa raalig annaga ka bixinay ma yara lalamana daahin. aad iyo aad baan raalli ugu nahay. waa mahadsantihiin. waa idinka gudoonnay waana ka maleynaynay walaalaheen abtiyaasheen muxuu ahaayay inay muxuu ahaayay intaas iyo ka badan iyo intaba way isku lahayn.